waagii hore waxaa loo haystay quurada inay dhibayso keliya qofka la jiifo qofka quurinayo, laakiin hadda waxaa la ogaaday inay dhibaatooyin badan oo caafimaad u geysanayso qofka quurinaya asagana. daaweynta quurada si ay noogu fududaato waa inaan fahamnaa waxyaabaha keeni kara quurada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود يناف مرينكا أما عذرات كل عفيرة. هدي أد جنالك كعصور فضلا سبسكرايب ده سيادنا على ساعة مر والبفضلا ريح جنب العلم. ما أنت وحكى هذي دونا دبعت القورة إيه داوين تذا. قورة ما أهن عذر وعلامة عذر. قورة ونفس الشد واق له أنت أدهور ديسا أما جيفتو. waa xaalad la arko badanaa waxay ku badan tahay ragga marka loo fiiriyo dumarka, waxay kaloo ku badan tahay dadka cayilan, siiba dadka qoorta aadka uga cayilan. mar walba uu qofka da'diisa sii badato ama uu sii weynaado xaaladiisa quurada way ka sii daraysaa. waagii hore waxaa loo haystay quurada inay dhibayso keliya qofka la jiifo qofka quurinayo, laakiin hadda waxaa la ogaaday inay dhibaatooyin badan oo caafimaad u geysanayso qofka quurinaya asagana. quurada dhawaqeeda waxay ka tarjumaysaa neefta oo si dhib leh oo ciriiri ah ku soo baxaysa marka uu qofka jiifo. sidaas darteed qofka oo neefta ciriiri ku tahay ma jiifan karo hurdo wanaagsan oo tayo leh. qofka waxaa laga yaabaa habeenkii inuu dhowr jeer soo kaco maadaama ay marar badan neefta qofka ciriiri ay ku noqonayso. haddii aad janalkan ku xiran tahay waxaad hore u daawatay fiideo aan uga soo hadlay dhibaatada dhafarka iyo hurdayarida ay iyo cudurrada ay sababayso qofka haddii uu caadaysto hurdayarida. sidaas darteed haddii qofka quurinaya ee hurdadiisa xumaato waxaa ku dhici kara cudurrada dadka hurdadooda yartahay ku dhaca oo kale. waxaadna kaga bogan kartaa fiideoga aan hore u sameeyey ee ku saabsanaa dhafarka iyo hurdayarida. daaweynta quurada si ay noogu fududaato waa inaan fahamnaa waxyaabaha keeni kara quurada. qodobka koowaad, inuu hawo-mareenka xirmo. maxaa xiri kara hawo-mareenka? 3 waxyaabood ayaa ugu badan oo hawo-mareenka xiro. inuu qofka sanka hilib ku leeyahay, inuu qabo qofka allergy ama xasaasiyadaasoo sababaysa qofka inuu ku dhasho caabuq, hadhowna neef-mareenkii inuu bararo, qofkiina ay ciriiri ku noqoto hawadii inay meesha si fudud ay ku marto. 3 inuu infection qofkaas uu galo. intaas waa cudurrada ugu badan ee hawo-mareenka xiri karo. qofka oo miisaankiisa aad u ziyaado, weliba qoorta eeriyadeeda oo aad uga weynaado ama qoorta uu hilib badan qofka uu ka saaran yahay, waxay sababaysaa markaas in mariinka neefta uu ciriiri noqdo, qofkiina ay ku adkaato neeftii inuu si fudud uu u neefsado. qanjirada dhuunta iyo carabka oo barara qofka, hadhowna inay ku adkaato neeftii inay si fudud ay u marto mariinka hawada. qodobka afaraad, qofka inuu isticmaalo daroogo ama daawooyin. daroogada ugu badan uguna saamaynta weyn waxaa waaye khamrada. marka laga hadlayo quurada, alxamdulilah annaga waxaan nahay dad muslim ah, isticmaalkeeda xaaraan ayuu naga yahay, sidaas darteed ma nagu badno. hadday xitaa dadka qaar isticmaalayaan aad ayay noogu yar tahay, laakiin waxaa aad noogu badan isticmaalka daawooyinka hurdada. daawooyinka hurdada waxay sababaan inay dabciyaan murqaha, hadhowna waxay sababi karaan neeftii inay si dhib ah ku soo baxdo ama ciriiri inay ku soo baxdo. qodobka shanaad, qaabka qofka uu u jiifo. qaabka qofka uu u jiifo waxay badinaysaa quurada. tusaale, haddii uu qofka u jiifto gedi cad ama dhabar quuradiisa way badanaysaa, murqaha neef-mareenkana ciriiri ayay noqonayaan. intaas waa waxyaabaha ugu badan ee sababi kara quurada. sidee loo daaweyn karaa? daaweynta waxaa u kala qaadaynaa 2. qaybta koowaad waa qayb qofka keligiis laga rabaa asaga inuu sameeyo. maxaa ka mid ah? in uu bedelo habnololeedka qofka, sida haddii uu cabo khamri inuu joojiyo isticmaalka khamriga. qodobka labaad, haddii uu isticmaalo daawooyinka hurdada inuu joojiyo. haddii uu dhakhtar u soo qorana waa inuu ku laabtaa dhakhtarka, uu la tashtaa, una sheegaa xaaladihiisa caafimaad iyo sida uu yahay iyo inuu quuriyo. qodobka saddexaad, haddii uu qofka aad u cayilan yahay ama miisaankiisa aad u badan yahay, inuu isku dayo inuu iscaateeyo, miisaankiisana dhimo. qodobka afaraad, beddel qaabka aad u jiifato oo u seexa dhinac meesha u seexan lahayd dhabar ama gedi cad u jiifan lahayd. dhinaca ugu fiican inaad u jiifatidna waa dhinacuu nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo nagala dardaarmay oo ah dhanka midig. qodobka shanaad, in aad madaxa kor u qaadid. maxaa laga wadaa marka? qofka waa in uu ku jiiftaa barkin aad u sarraysa ama in uu 2 barkin uu isticmaalo. qaybta kale daawada
waa inaad dhakhtar aadid lana xiriirtid dhakhtarkaaga inta aadan aadin dhakhtarka waa inaad heshaa qof kula degan oo og xogtaada mar walba sida qof kula jiifto qolka haddii uu ahaan lahaa xaas ama ninku qabo sidoo kale saaxiib ama family member ama qoyskaaga qof ka tirsan sababtoo ah dhakhtarka wuxuu u baahan yahay inuu ku weydiiyo su'aalo aad u fara badan su'aalahaasna marka lagu weydiinayo waxaa la rabaa inaad kulli ka jawaabtid maadaama qofka markuu quurinayo ay tahay mar uu jiifo su'aalo badan oo ka mida ma ka jawaabi karo xilligaas maadaama maskaxdiisa joogin waxaa ka jawaabi kara marka qofka markaas qolka la jiifo oo xaaladiisa iyo informationkiisa kulli soo gudbin karo siduu qofkaas ku sugnaa marka uu jiifay kadib waxaa fududaanaysa inuu dhakhtarka helo sababta uu qofka u quurinayo daaweyntana way u sahlanaanaysaa daaweynta waxay noqon kartaa qalliin sida in lagaa soo saaray hilib sanka ku jiroo kale ama boolib in lagaa soo qalo sidoo kale daaweynta waxay noqon kartaa daaweyn fudud sida qofka in laga daaweeyo xasaasiyadda oo kale sidoo kale waxaad isticmaali kartaa si aad u kaalmaysato una yarayso quurada dhowrkan qalab labadan qalab kow nasal strip oo ah koollo caag leh koolladaasoo fududeynayso mariinka sanka neefta inuu fududaado sidoo kale waxaa isticmaali kartaa jean strap waxay ka kaalmeynaysaa qofka inuusan furin afka inta uu jiifo si fududna oo uga neefsado sanka waxaa jira agab badan oo loo isticmaalo ka hortagga quurada waxayna u badan yihiin kuwa loogu talagala ganacsi macaashna laga raadinayo sidaas darteed ma wanaagsana inaad mid walbeeta aamintid waxaa wanaagsan inaad dhakhtar ay qusayso arrintan mar walbeeta u tagtid si aad daawo saxa ah u soo heshid dhakhaatiirta aan kugula talin lahaa mar walba inaad u tagtid waa dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada neefmareenka iyo sidoo kaleeto dhakhtar ku takhasusay hurdada takhasuskooda yahay sleep medicine haddii aad doonaysid inaad wax badan ka ogaatid dhibaatada caafimaad ee sababto hurdayarida ee keenta quurada fadlan daawo fiidiyowga aan hore uga soo hadlay dhibaatada dhafarka iyo hurdayarida waa isku mid xaaladaha caafimaad ay sababayaan maadaama kulligood ay keenaan hurdayari xaaladaha caafimaad ee ka dhasha hurdayarida marka kulligood waxaa kaga bogan kartaa fiidiyowgaas intaas waa talo caafimaad wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay og tahay sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey qof walbana uu heli karo waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyowgan insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyow oo muhiim ah usbuuca soo socda fiidiyowga ah waxaan uga hadli doonaa cuntooyinka u wanaagsan maqaarka wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga sidoo kale noogu soo dir commentiga mawduuciya aad doonaysa in laga hadlo si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal waa inoo mar kale fiidiyow kale إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.